sacdiya cunto karis. Asxaabta maanta waxaa rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo sida u samaystay hilibkana u jeediin iyo bariis. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaan. Marka digsi ayaa dabka soo saartay, hilibka ayaa kusoo shubtay. hilibkana qiyaastada ayay ku xiran tahay inta familka ugu samaysanaysid insha Allah. kadibna waa u jeediin weelkan waxaa igu jiro basal, tuun, barbarooni iyo filfil iyo cagaarkaas oo lagu carfiyo cuntada bay leaf aa lahaa. marka intaas ayaa iskula karinaa iyo maraq digaag insha Allah. maraq digaagana midka noocan aan isticmaaloya oo loogu talagalay maraq digaaga noocan waxaa loogu talagalay micnaha digaag maahan, hilibkii xasaa loogu talagalay in lagu karsado. marka asiga ayaa ku daray kadibna markuu maaragta karsamay biyihii kursan rabo oo biyaha wax yar ku haray oo maaragta hilibkiina weli wax yar u dhiman saaid biseel mu aha laakiin woona bislaaday. marka foornada ayaa ku dhameystiri doona insha Allah. waxaa samay biyo ayaa kusoo dhex bixiyay weelkaas ayaa kusoo shubtay. kadibna weel kale ayaa soo qaatay, saliid ayaa kusoo shubanaysaa. saliidan waxay ku xirantahay intuu hilibkaaga yahay. aniga hilibka ma badno marka sidaas darteed saliid yar ayaa isticmaalay. kadibna waxaa isticmaalay maraq digaagii midkii oo maaragta oo loogu talagalay hilibka. kadibna waxaa isticmaalaa paprika, waa barbarooniga shiidan. xoogaa wax yar oo fiican isticmaalaysaa soo si fiican kugu gaduudiyo hilibka. marka kadibna waxaa isticmaalay filfil. filfishana sidoo kale qiyaasta hilibkaaga ayay ku xiran tahay. kadibna waxaa isticmaalay coriander. sida ujeediin bo micnaha wax qaandi wax ku qiyaasooyi isheeda ayaa ku qiyaasanoya iyo inta maaragta u baahantahay ku xiran tahay qasama qaandi waxaas inaan ku qiyaastay hada kor ka taqaanid qiyaasta. marka kadibna waxaa isticmaalay xawaaji dhudhub. kadibna waxaa isticmaali doonaa marwo xawaashka oo maaragta loogu talagalay marka baastada suugadeed la karinayo. sababta ay u isticmaalaan waxay tahay paprikada ay ugu yareeday barbarooniga shiidan saas dartiisa macnaha inaa ku gaduudiyo hilibka ugu talagalay. hadaa haystid barbarooni kugu filan yahay, barbarooni fiican, barbaroonigaas le u badso xawaashkaas oo maaragta oo marwada waa ka dhaafi kartaa qasama inaa ku dartid markaas. marka waxaa sameeyaa saliidi marka xawaashaas iskula qarsay hilibka ayaa saas ugu soo korshubaa. hilibka marka ugu soo korshuwana waa isku qasas fiican markaas kugu qaso. asxaabta foornadana sii daarta. foornada maadaama hilibka gelinayno foornada maaragta inay kusii kulushahay ayaa la rabaa. marka hilibka markaas sidaan iskugu qasqaso waxaa soo qabsan doona insha Allah saxan oo bacda saaranta aluminiumka bacdaas oo dhadhalaalayso foornada kula geli doona. hilibkana sidaas micnaha foornada kula gelinaya bacda ayaa kula duduubi doona insha Allah. hadaa maaragta sidiis kula geliyo wuu qalalaa hilibka sidaas darteeda bacda waxay sameynaysaa way hurinaysaa si fiican micnaha hilibka wuu huraa oo makaa qalalayo. dabkana maaragta u yaray foornada dab gaaban iskaga geey hal saac 40 daqiiqo ilaa hal saac dab gaaban iskaga geey. just hilibka maaragta wuu ku gaduudanaa woona maaragta qalalna makaa naqanayo. hadaa dab badan hal mar u geysid oo dabka foornada oo kaa dafo wuu kaa qalalaa. marka sidaas darteed asxaabtada qaaliga waxaa sameynaysaa foornada maaragta dab saaid u gaaban u geey insha Allah. marka hadeertan sidaas iskugu duduwa waana geli doonaa foornada 150 celsius camal u geeni ilaa 170 ilaa 40 daqiiqo ilaa hal saacadood insha Allah foornada iskaga daay. marka inta foornada markaas u gelino waxaa diyaarsanaynaa bariiska maaragta waxaa ku kari lahayn oo basasha iyo tuunti. marka anigu hadda waxaa raacinaa karooto isticmaali doona insha Allah. karootadana waa hoolaa. karootada waxay ii sameynaysaa kalarka bariiska maaragta kalar hadhow ma rabin inaan isticmaalo. kalarkaas ay maaragta booskeedii galaysaa iyo xoogaa waxaa ka dareema markaa karootada ku daro bariiska inuu maaragta dhadhan gooni i yeeshto. marka aday kugu xiranta hadaa rabin karootada waa ka dhaafi kartaa qasama inaa ku dartid laakiin aniga ahaan waa ku darsaday insha Allah. waxaa rajeynaa ininkan inaa baroobeysaan. marka hal xabo basal ayaa isticmaalaa iyo 4 xabo oo tuun iyo hal jab oo karooto marka bariiskan waxaa sameeyay asxaabteeda ma duubin oo
inaad duubaa raba laakiin ma ka gaarin. marka bariiska waxaa sameeyay biyo ayaan ku horta waa dhaqaysaa, kadibna biyo ayaa 10 ilaa 15 daqiiqo camal la dhigay. marka la dhigtid kadibna maaragtay biyaha marka ka miirtid xoogaa yar banaanka hawada dhigaysaa wuu ku qalalaa bariiska. markaas insha Allah karinaysaa. marka dirta marka toonta iyo basasha iyo wixii dhan karootada soo diyaarsaday digsi ayaa dabka soo saartay, saliid ayaa ku soo shubtay. saliidan waxay ku xiran tahay inta oo koob oo bariis ah karinaysid. aniga hadarta waxaan karinayaa 4 koob oo bariis ah. markaas darteed xoogaa saliid fiican isticmaal, basal fiican, toon fiican isticmaal soo bariiska maaragtay caraf iyo macaan kugu noqdo insha Allah. oo maadaama toonta hadaa yarisaa xabad toon hadaa ku dartid bariis badan ma laga dareemayo. marka toon fiican isticmaal, basashana hal xabo ilaa maaragtay 2 xabo inta rabtid oo maaragtay bariiska ku xiran yahay. marka 4 xabo toon markaas ugu soo jabsaday, halka xabo basal ku soo shubtay. kadib waxaa sameyn doonaa karootadan waa ku soo shuba doonaa insha Allah. dabkan saa u jeedin kuleel asoo ma ku soo shubin, koo tartiibtiisa uu soo kulaana dabka asoo kuleel wixii dhan hadaa ku shubtid dabka ka dafaa oo ka gubanaa. marka xoogaa yar dabka maaragtay saliida maaragtay inuu saaid u kulaato muhiim ma aha. koo aydoon saaid u kulaanin waxa dhan hal mar isku shubi kartaa, kadibna tartiib baa sugaysaa saliida ayada soo kulaanayso. kadib marka sidaas isku soo shubay kulli waxaan ku soo shuba doonaa xawaashyaasha iyo maraq digaag insha Allah. xawaashka isticmaalayo waa marwo xawaash oo bariiska loogu talagalay. maraq digaagana waa mid kaartada isticmaal kartaa haysatid, laakiin xawaashka muhiim waaye bariiska maadaama markaa sameynaysid inaa xawaashkan isticmaashid. asigana waxaa isticmaalay hal qaado oo qaadada yariista oo maaragtay shaaha iyo kafeega lagu walaaqdo, qaandadaas isticmaalay oo hal xabe ah. kadibna waxaa isticmaali doonaa qarfaha iyo heelka iyo kulli maaragtay isticmaal doona insha Allah. hadda waxaas ku daray waxa waa maraq iyo hilibka wax yaris ayaa ku darsaday maaragtay soo igu basasha iyo maaragtay iyo karootada iyo wax yar si u karsanto insha Allah intaan bariiska ku darin. waa kana hadda u jeedin heelka ayaa ku soo shubtay 2 xabo oo dhageero ilaa 3 xabo ayaa ku soo shubtay. qarfo iyo waxa isticmaalaa caleenta soo cuntadan ayadana cuntada lagu carfiyo. intaas markaa ku soo shubtay bariiska ayaa ku soo shubanaysaa. bariiskan saa hore niigu sheegay waa soo dhaqay, waa biyaha la soo dhigay, waa soo qalajiyay. marka saa u jeedin waa laga dareemaa bariiska dhan maaragtay wuu ku weynaana hadhooti markaa maaragtay karinaysa biyaha marka hada ku biyo la soo dhigtay marka gadaal bariiska karinaysid biyo badan inaa ku dartid ma loo baahno, laakiin hadaa biyo la dhigin maaragtay hadhooti biyo badan oo kaga baahnaa. marka hadartan waa arki doontiin ani biyo badan ma isticmaalay, biyo yar is isticmaali doonaa. bariiskan ma sha Allah bariis furfur ku naqanaa. hadda xoogaa yar maaragtay xawaashyaasha iyo saliidii kulli maaragtay bariiska isku la shiilaa, kadib biyaha ku darsan doonaa insha Allah. intaanan biyaha ku soo shubanin oo macnaha biyaha oo kulul oo hilibka ku soo shubanin maraqsiga hilibka oo iga haray oo macnaha wax yaris loo ahaa ebel wax badan ma heenin ku soo shubtay. kadibna biyaha caadiga ku dhameystiri doonaa. biyahana waxaa la rabaa inuu biyo kulul inuu ahaado oo macnaha inaa gooni soo kululeysid biyaha kow. marka asxaabteeda u jeedin bariiska wax yaris waa loo jeedaa xataa marka biyaha ku shubay wax yar leeg soo dul marinaa. hadda intaan wali waa yartahay xoogaa yar biyo ayaa ku daraa. kadibna maaragtay asxaabteeda dabal ayaa saaranaysa tartiib dabka tartiib inuu u karsamo waaye bariiska. kadibna maaragtay marka aad dabka hal aad geynaysa adi inta dabka ugu yar yahay meesha inta ugu yartaa geynaysa bacda aluminiumka iskaga daboolaysa. kadibna bariiska tartiib inuu gursado la rabaa oo maaragtay oo ku huuro soo furfur kugu noqdo.
kadibna ma aragtay waxa ratid ku carfinid hadaa ratid basal soo shiila kartaa oo ma aragtay kor ugu soo dari kartaa ani hadeertan saa u jeedeen sabiib ayaa kor ugu shaqay waa kana hilibkina inta bariiska kariyay hilibkina diyaar ayuu noqday marka foornada kasoo bixi iska ilaali bacdas marka ma aragtay furisid huur yar soo baxay ku gubi karaa marka ilaali insha Allah laakiin hilibka sidaan ayuu noqday ma sha Allah aad iyo aad ayuu macayahay asxaabtada qaaliga waxaa rajeynaa inaa baroweysaan hilibkan sida u sameeyay iyo sidoo kale bariiska waxaa rajeynaa inaa ka faa'iideen hadaa ka faa'iideen insha Allah comment igu soo qora like iyo share kana ha iga hilmaamina sidoo kale YouTube meela channelka hadaa ku cusub tahay subscribe ka iga hilmaamina asxaabtada qaaliga hadaa hor noo joogtayna aad iyo aad ayaa mahadsan tahay subscribe ka agtiisana gambaleelka ku yaalo taabso kugu soo dhaco video walba ama mustaqbalka soo geliyo insha Allah asxaabtayda aad iyo aad ayaa idinkugu dadaalooyaa videoyaasheeda insha Allah inta in ka badan ayaa ka dhigi doonaa waxaa rabaa ina idinkana ila dadaashiin oo ma aragtay commentiga like-ka share-ka iyo badisiin insha Allah videoga xiga ayaa is arki doonaa asxaabtayda qaaliga waxaa idinkaga tagaa khayr iyo caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh